العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، waxaan ku jirnaa bishii Shacbaan ee ka horeysay bisha Ramadaan. waqti walba iyo xilli walbana wuxuu leeyahay cibaadaad munaasab ah oo nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi ka sugan, ama si guud ama si gaar ah. bishan cibaadaad fara badan bilihii kale kula mid tahay, laakiin nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi waxa uu si gooniye ugu khaas yeeli jiray inuu soonka badiyo, bishan inuu soonkeeda badiyo. Aisha waxay leedahay radiyallahu ta'ala anhuma, ma arkin nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo bisha Shacbaan soonka uu soomayo bil kale soomaya ma arkin. soonka ugu badan ee sunnaha ah bisha Shacbaan buu nabi Muhammad soomi jiray bay tiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. xadiidka riwaayo kale oo tiisa waxay leedahay Aisha radiyallahu ta'ala anhuma, nabigu bisha Shacbaan oo dhan waa wada soomi jiray. riwaayo kalena waxay leedahay Shacbaan oo dhan buu soomi jiray in yar mooyee, wax yar ayuu afuri jiray, inteeda badanna waa soomi jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam. xadiid kale oo Aisha ay warinayso sunan Abi Daawud ku yimidna waxay leedahay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi bisha uu ugu jecel yahay inuu soomo Shacbaan bay ahaan jirtay. soonka uu soomo yahay bisha Shacbaanna wuxuu ku xiriirin jiray soonka bisha Ramadaan. caaday u ahayd nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. marka waxa haboon bishan in la badiyo soonka, لأن سيدة النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه هذا أركته إسقى عبادة ملك خاص يليه، أما وقت يدا كم إذا عبادة خاص يليه، أما طول كمل كم إذا عبادة خاص يليه، حلقة أما طول كاس عبادة علاقة خاصة كدحيس. حكمة باكو شرطة ما شرطة وحلي إلى هذا شارعة الله تبارك وتعالى رسول كيس صلوات ربي والسلام عليه إني وقت عبادة إسلاف في رصدان، أما مال يبقع عبادة إسلاف في رصدان وإسكت عضو. حكمة الآن ما شرط، حكمة باكو شرط وبيشن واحد لو صومي والنبي قصون كأوبدين شري صلوات ربي والسلام عليه. حكمة باكو شرط، حكمة قار كم إذا النبي قاتل المامي صلوات ربي والسلام عليه وعائشة وحي ويديس رسول الله يو بيشن محاد صون كأوبدي ساعة. wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam bishani waa bil ay dadku moog yihiin oo halmaansan yihiin ilaahay cibaadadiisa. laba bilood bay u dhaxaysaa. bisha Rajab leeyda oo ashhurul hurumka kamida, afarta bilood ee xurmada leh goonida ah bay kamid tahay, iyo bisha Ramadaan oo bishii soonka iyo cibaadaadka ah. labada bilood oo bilaha xurmada leh kamid tahay, midna ay bishii Ramadaan ba tahay. labada bilood bay u dhaxaysaa, dhexday ka baxdaa. marka dadka badankood iyagoo moog oon kaba warhaynin oo cibaadada Ilaahay iyo taacadiisa halmaansan bay bishu dhaaftaa. sidaas daraadeed baan soonkeeda u badinayaa buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi. maxay tilmaamaysaa waqtiga ay dadku cibaadaadka Ilaahay moog yihiin ama ka hurdaan ama ka sii jeedaan, xilligaasoo kale ruuxa cibaadada Ilaahay ku mashquulo adoomada khilaafa oo ghaflada ay ku jiraan garab mara, wuxuu leeyahay mudnaan khaas u leeyahay, ajir siyaada abu leeyahay. maxaa yeelay waa xilli la wada halmaansan yahay, asaga ku baraarugsan oo dadkii ka dhaxbaxay. waa mid keentay nusuus fara badan inay ku timaado oo meelo kala gedisan ku timid. ruuxa xilliga noocaas oo kala ah cibaadada Ilaahay tabaaraka wa taala in ajir siyaada la siiyo. mudnaan khaasana nabigu siiyo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi.
waxaa ka mid a maalan asbaabta jannada lagu galo nebigu wuxuu ka mid dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dadku markay hurdaan habeenkii oo cid ilaahay xusaysaba ay yar tahay intaad hurdada ka soo kacdo inaad ilaahay xusto asbaabta jannada lagu galaa laga mid dhigay leanna waa xilli dadku ay halmaansan yihiin waxaa ka mid a maalan nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya markay fitna dhacdo way dadku islaynayaan oo kuraas iyo adduunyo iyo jago iyo dhul iyo balaayo laysku laynayo la mashquulo ilaahay cibaadadiisa iyo khayrkana laga kala tago la halmaamo addoonka xilligaa cibaadaysanaya ee cibaadada ilaahay ku mashquulsan wuxuu la mid yahay buu nebigu sal alla alay wasalam sidii mid aniga ii soo hijrooday oo kale leesh lianna waa xilli dadkii ay aafe iyo balaaya gashoy fasaadeen inta cibaadada ilaahay ku baraarugsanna ay yar tahay wahaakada nusuus fara badan baa ku imaanaysa xilligaa layshalmaamo dadku seexdaan ay cibaadada moog yihiin in cibaadada lagu mashquulo ajir siyaadaa bay leedahay taa waa qodobka koowaad oo nebigu ku cileeyey sal alla alay wasalam soonka bishan badinta uu badin jiray cillada labaadii wuxuu nebigu ku cileeyey sal alla alay wasalam wuxuu yidhi bishani waa bisha acmaasha kor loo sii qaado addoommadu waxay samaynayeen sanadka taacaadkii khayraadkii wixii la samaynayay baa kor la geeyaa oo kor loo sii qaadaa saas daraaddeed waxaan jeclahay anigoo sooman in camalkayga la sii qaado ayadana waa sabab kaloo nebigu ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh macnaha inoo soo baxaya waxa weeye nebigeenna si aan ugu dayanno salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bishan ciddii kari karta soonkeeda ha badiso hadyigii nebigeenna way salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo dariiqiisii arrinta labaad ee baraarujinta mudani waxay tahay bishan markay ay kala badhanto habeenka niska ay tahay waxaa dhacda arrin weyn arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala maxay tahay arrintaas wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenka bisha shacbaan ay kala badhantoy nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood dembigooda waa saamaxaa ilaa 2 ruux mooye ruux mushrik ah oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey kaasi ilaahay marna u dembi dhaafi maayo waa tan qur-aanku tilmaamayo in allaha laa yakfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo oo laysugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn weyn adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan kaa tahay naarna aad ku waarayso saas daraaddeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin waa cuqdadlow waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaadda u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyey isagiiyo mushrigii baa laysgarab dhigay
ولا فوقي وحن ماشي كفهمينا إلهي تبارك وتعالى دنبيدا laga galo kuwa ugu waaweyn waxa kamida inuu qalbigaagu jiran oo u jiran yahay dadka Ilaahay adoomadiisa ee muuminiinta ee muslimiinta waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii Ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha kaliyana ma aha munaasabaad fara badan xiqdiga iyo calool xumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad Ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo xuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaam alayhi inuu yiri maalin kasto oo khamiisa iyo maalin kasto isniin ah acmaasha adoomada kor loo qaadaa Ilaahay ba acmaasha loo geeyaa markaas Ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa cid kasto adoomadiisa ka mid إلا عد مشرقو إلهي أدومديسة حقي الله كدحيسيي مويه يا كلي نين كلاس إساقنا أن لو دافينين ومالين كاسي إساقنا أن خميستي يجمع مركا أعماش الله قاضي أن لو دم بدافين واكي والنبي صلى الله عليه وسلم والروحة إساقا إيا ولالكيس مسلم كا أي كدحيس الشحنا حقدي أو كدحي الله وحليه تبارك وتعالى لبضن حقدق حمانتا إصوها يدبدق أرنكودا وكاذية إلى أي كسو هشيان ميلا بضن بعض قاضي مركا لأن إلهي تبارك وتعالى وحوقوش عليه هاي أعماشه وحوقوش عليه وحا كمذا إن قلبقاقو سليم يحي قلبقاقو فيوية قلبقاقو حارية ضدك مسلمين تا وضا تشعشه xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi ayaa waxa la weydiiyay dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruux kasto oo mahmuumul qalbi as-saduqul lisan qalbigiisu mahmuum yahay arabkiisuna rum badan yahay waxay yiraahdeen garanay midka arabkiisu rum badan yahay qalbigiisa mahmuuma maxaa laga wadaa maana fahmin oo cadde wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa laga wadaa huwa at-taqiyyun naqiy wa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay wasi wada nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waa midka qalbigiisa aan dambi ku jirin gardarro iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin dhilli iyo khiyaana ayna ku jirin xasad uusan qalbigiisa ku jirin kaasa ilaahay adoomada ilaahay ugu fadli badan uguna jecel yahay saas daradeed hadaad qalbiga xumaan ku hayso xaaladahaas iyo waqtiyadaas munaasabka qiimaha badan ee laysa saamaxaya waa laga reebi waad ka hadhaysaa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saddex bari oo isku xigtay buu saxaabadiisa oo la fadhiyo wuxuu ku yiri waxa idin soo gali doona nin ahlu jannah saddexdii bari ba hal nin baa soo galay ninkii haday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen war ninkan saddex bari janno looga marqaati kacay xaalkiisu muxuu ah haday raadiyeen waxa cadaatay ninkaasi cibaado badan oo ragga la dheer yahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad oo saxaabada kale la dheer yahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxa la helay oo uu sheegay hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya waa midda uu meesha ku gaaray waay sidaas daraadeed hadaad ilaahay dambi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiif الله تبارك وتعالى مؤمنين تمركوا تلمامه يصدح قيبوت بو كدغاي في سورة الحشر قاروا مهاجرين قارنوا أنصار قارنوا قلدا صدحادو تلمانتا لسيه والذين جاءوا من بعدهم لبدا قداشودا كوا يميد مؤمنين تدنبا يدب كيميد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وحيدها يعني
rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanagii nooga horreeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qalbiga naga allah xiqdi ha gelin xiqdi aanu hayno dadka mu'miniinta ilaahu qalbiga ha naga gelin marka xiqdi haduu qalbigaaga haysto dib kugu filani waa ku hayaa dib in kugu filani waa ku haysataa aimada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar kamida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka shacbaan ay kala baranto ilaahay waa u dambi dhaafaa adoomadiisa ilaa mushrik iyo mushaahin mooye aimada salafka qaar kamida waxay ku fasireen mushaahinka waxa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam uqdada iyo nacaybka u haya sida imaam awzaa'i alayhi rahmatullah ku fasiray waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn yahay dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa sallam alayhi lianna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay ummadda nabi maxamed ka xushay saabiqiintii bay ahaayeen ardadii nabi maxamed bay ahaayeen kuwii quraanka iyo sunnadaba lagu amaanay lagu taskiyay bay ahaayeen kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha hadaadan gaal ahayn ina dambiile xaqa aad uga fogeynata maayeel ilaahi tabaaraka wa taala quraanka kariimka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlay saxaabadii nabiga iyo siday nabiga u garab istaageen u xoojiyeen ay dhinacyaha uga galeen oo diinta u xoojiyeen allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala liyaghiidha bihimul kuffar gaalada in lagaga xanaajiyo oo ciil la bado daraadeed buu allah saa u yeelay ninka xanaaqsan ee ciilkii cadhada u haya saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam aayada waxa laga qaadanayaa inuusan muslim ahayn aymadii salafka qaar kamidana saa u daliishada ridwaanullaahi calayhim sidaas daraadeed saxaabada inaad cuqdo u qaadaay mas'ala sahlan ma aha cuqdada iyo xiqdiga la qaadato ugu culus waxa soo raaca aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim ardadii saxaabado taabiciintii kuwii ka dambeeyay aymadii saddexdii qarni culimada muslimiinta sunnada u taagan ee diinta faafinaya kuwaasa ugu daran inaad xiqdi iyo cuqdad u qaado dadka kale muslimiinta guud ahaan ayaguna waa soo galayaan maxay ilaa nabigu ma kala qaadinta salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin way sii kala culus tahay saas daraadeed xiqdiga shiicada iyo raafidadu ayda ay saxaabadii nabiga caayayaan xiqdiga ay u qabaan colaada ay u qabaan nacaybka ay u qabaan ayagiyo inta raacsanba shaki malaha in ay galayaan xadiidka nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fayaghfiru li jamii'i khalqihi illa limushrikin aw mushahin dad ilaahay doortay markaad adigu ku mashquulsho shaqo ka dhigato ya man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb bu allah yiri tabaaraka wa ta'ala awliyadayda ruuxi la colaytama aniga dagaal u cilaamiyay ha ku tala gala dagaalkayga saxaabadii nabiga ninka ku mashquulsan ee laga kari laayahay dagaal rabbi tabaaraka wa ta'ala ayuu ku jira nin ilaahay dagaal la galayna shaki ma laha inuusan marnaba reynaynin oo laga adkaanayo oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala adduunyo aakhiraba uu ciqaabahayo uqubada rabbi iyo cadaabkiisa inuu hal isugu jiro muslimiintu marka ha ka nabad galeen qalbigaagana u fur يا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلوكو قدام بدافع وادنت هذه مصلحة هذه عافيتك سامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا علي سنتور دبا دريميسو قرصو دبكاغا عرضاده علي ددكنا اسك سامح او عفي الا تحبون ان يغفر الله لكم يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو كحناقي ننكي مصطح بن أثاثة يا مركو كحناقي وعائشة دتكي كبين أبورتي كقيب قلي
وبين تفافيين أبورتك كدبنا ويري دب دم إننا مصروفين قرابي أهايا إلهي آيات نزودك تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وارمي إذا انشعلين إن إلهي إذين ضافوا إذين سامعوا جوابتوا ها وانشعلنا إلهي أدومدي سامحا عفية قلبك أفرا والنصيحية مسلمين تجعلوا متك قلوا سنة دنبك كلي دنبك سنع لكن إسقها النعل يا دنبك يا أهواذا يا حمانتا لفت هذا لنع لكن شخصك مسلم كان لمنعه لما نكهضه لفيه سوى الروح مسلم عاصبها سداس درادد دنها الدنيا دقالك كوساب سني ملكو جين ماي حقابا إذن دحمري صح هذه الشحناقة أضوها يسويها الروحاني يعني فكر كأوحا بارسيني وحو فكر خربا دين أهم بعد هجرته وحو وتي مبدئ إيسا خلدا تاسوا مسألة كلام لكن واحد ضد قال سنتود وحنا سنتود ونعبتها والدنيا كرسي با إذن دحمري حولا إذن دحمري وحوقابا إذن دحمري تاميا شحناقة نوعا سلما أقولا سأسترادين سي أنشانس كان يوقف إليسنا وهبين ندن إنه قسو آدم ويبش شعبان إن النس نقطه وهبين ندن إنه قسو آدم قلبك وقتك يرى الله وان انت تكشقيسيسو ظاهري ونظيف ان شاء الله تعالى سي الهي قلبك او ضالعده كدبنا لوو قدام بدافه باذن الله تبارك وتعالى او دوغ من نقطه ددك لا سامحيو هبينك باذن الله صلوا وسلموا على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك